haddii aad ka fikiraysid inaad dooratid long term career ama career mustaqbalka fog ku anfaca waa inaad laba dhinac aad ka fikirtaa ma tahay shaqadaas mid lacagteedu aad u badan tahay mustaqbalka ama shaqooyinka ugu lacagta badan mustaqbalka iyo sidoo kale shaqooyinka ugu dalbashada badan mustaqbalka labadaas dhinac ayaad ka fiirinaysaa markii aad rabtid inaad dooratid long term career muuqaalkan horta idinkaa dalbaday maalin dhawey qaybta community ayaan soo dhigay inaad igula wadaagtaan toobigada aad jeceshiin inaan muuqaalo ka sameeyo kadibna commentiga oo dhan wuxuu wada noqday shaqooyinka mustaqbalka ka soo hadal waa kana muuqaalka aad dalbateen daawasho wacan shaqada ugu horeyso waxaa la yiraahdaa financial management ama shaqooyinka financial managerska ay qabtaan financial managerska waxa waaye dadka maamulo ama haddii si kale aan dhaho dadka dhaqaalaha maamulo shirkad ha noqoto organization ha noqoto meel walba ay noqoto dadka maamulaya dhaqaalaha companygaas ama organizationkaas waxaa la yiraahdaa financial managerska shaqadooda waxa ay tahay inay siiyaan financial advice ama tooyin ku saabsan dhanka financiga ama dhanka dhaqaalaha ha noqoto client ama macmiil oo ayaga ay toos ula shaqeynayaan ha noqoto shirkad ay la shaqeynayaan qof walba aad la shaqeynaysid shaqadaadu waxay tahay inaad siisid financial advice sidoo kale shaqadoodu waxay tahay inay ka war hayaan systemka financiga uu shaqeynayo ee shirkadaas ama qofkaas companygiisa financiga systemka uu shaqeynayo iyo procedure-ka la marayo intaba waa in ay ka war hayaan oo ay og yihiin waxa lagaaga baahan yahay maxay tahay marka si aad u noqoto financial managers horta waa inaad haysatid bachelor's degree oo ku saabsan maareynta dhaqaalaha iyo wixii la mid ah sidoo kale waxaa skillska lagaaga baahan yahay kamid ah inaad xisaabta aad ku fiican tahay sidoo kale waa inaad taqaanaa problem solvingka iyo sida mushkiladaha loo xaliyo sidoo kale waa inaad ku fiican tahay wax la yiraahdo analyticalka ama gorfaynta inaad wax gorfayn kartid sidoo kale waa inaad taqaanid negotiationka ama sida loo gorgortamo iyo sidoo kale inaad taqaanid wax la yiraahdo decision making ama go'aan qaadasho oo aad qofka aad siin kartid go'aan dhaqaale ee ku saabsan waxa aad ka hadlaysid waa inaad dhigi karto waxaas baa sax ah samee waxaas qalada iska dhaq shaqooyinkaana waxaa la sheegay in by 2026 inay ka banaanaan doonto 100,000 iyo in ka badan oo position inay banaanaan doonto ayaa la sheegay mushaarkooda hadartaan sanadkii waa 120,000 oo dollarka Mareykanka shaqada xigta ee mustaqbalka ugu fiican waxaa la yiraahdaa ayadana software iyo application development waa maxay shaqooyinka ay qabtaan waa dad dhiso applicationadan kombiyuutarada taleefanada iyo deviceskaas dhan ku shaqeeyo waa dad programmer ah oo bartay cilmiga programming marka sidee maxaa lagaaga baahan yahay si aad u noqotid software developer ama application developer horta waa inaad baratid programming languages badan midda kale xigta waa inaad leedahay creativity oo aad wax fikri kartid oo fikrad aad sameyn kartid sidoo kale waa inaad taqaanid logic oo dad sida logic u shaqeeyo systemka ama programka ama waxa ka shaqeynaysid qaabka u shaqeeyaan waa inaad fahansan tahay sababtoo ah programmingka waa inaad taqaanid waxaan aad sameynaysid qaabka u shaqeynayaan waa inaad ogtahay waa in aad leedahay logic reasoning wax la yiraahdo sidoo kale skills kale lagaaga baahan yahay waxa waaye ayadana inaad wax la yiraahdo waxa aad sameynaysid ay accurate noqdaan sababtoo application noqoto wax walba ay noqonayso oo aad programinaysid waa in sida la rabay aad u samaysid wax lama rabo 50-50 ah ama wax ka qaldan yihiin lama rabo waa in accuracy ay yeeshaan waxaas oo accurate ay yihiin waxa aad sameynaysid qoyinkan oo dhan waa in asaasiga horta kow ah haysid bachelor's degree 2026 waxa ka banaanaan doonto 250,000 oo position ayaa banaanaan doonta ayaa la yiri mushaarkooda hadartaan sida la sheegay waa 100,000 iyo wax kor u dhaafaya mustaqbalkana way ka sii badan doonaan shaqada saddexaad oo xigtan waxa la yiraahdaa general ama operation manager maamulayaasha guud dabcan sasnata umaleynaya balse maxay qabtaan marka general iyo operation managerska shirkadda ama organizationka shaqooyinka ay qabanayso shirkadda ayay maamulayaan operationka meesha ka socda oo dhan ninka madaxda ka ah oo wax kala hagaayo oo maamulaya adiga ayaa ah oo wax isku xiraayo oo barnaamijka ama operationka oo shirkadaas ay qabanayso qofka kala wado waa adiga operation manager haddii aad tahay shaqadaadu waa sidaas ama sidoo kale general manager marka adiga un baan lagala xisaabtamaya shirkad walbana way leedahay operation manager ama ha noqoto branch walba xataa meelaha qaar xataa branchiyada oo shirkadaha ama bangiyada oo kale way leeyihiin operation manager sidoo kale aqoonta lagaaga baahan yahay waa inaad haysataa bachelor's degree skillska lagaaga baahan yahayna waxaa waaye kow inaad taqaanid horta leadership sababtoo dad baad maamulaysaa waa inaad taqaanid habka wax loo maamulo waa inaad taqaanid ama habka wax loo hogaamiyo waa inaad taqaanid sidoo kale skills kaga baahan waxa waa interpersonal dadka si loo dhaqmo inaad taqaanid sidoo kale communication waa inaad leedahay oo dadka aad la communicate gareyn kartid waa inaad taqaanid sidoo kale conflict management ama sida khilaafaadka loo xaliyo shaqooyinkan waxa la yiri marka 2026 waxa ka banaanaan doonto 200,000 oo position oo boss ayaa banaanaan doonta ayaa la yiri mushaarkoodan hadartaan sida la sheegay waa 100,000 wax kor u dhaafayo mustaqbalkana way ka sii badan doonaan shaqada afraad ee mustaqbalka ugu wanaagsanna waxa la yiraahdo management analyst shaqadiisu waxay tahay in uu siiyo talooyin dadka maamulayaasha ah ama managerada ah waxa la fadhiisanaysaa dadka managerada ah ama maamulayaasha shirkadaha ayaa la fadhiisanaysaa kadibna waxa u sheegaysaa habka ay ku habboon tahay in wax loo maamulo ama shirkadda ay u shaqayso waxyaabaha aad kala talinaysid dadka manageradana waxaa ka mid ah habka shaqada loo sameynayo ama work flow waxa la yiraahdo marka sidoo kale waxaad kala talinaysaa habka
qaabka ay faa'iido ay ku sameyn karaan badan shaqooyinkaas iyo kuwa kale badan ba aad qabanaysaa talooyinkaas ayaad nasiin kartaa dadka managerada skills lagaga baahan yahay ugu muhiimsan waa in kow aad taqaanid dadka sida loola dhaqmo sidoo kale communicationkaaga waa inuu fiican yahay sidoo kalena waa in problem solving aad taqaanid oo sida mushkiladaha loo xaliyo aad taqaanid sidoo kale waa inaad taqaanid skills la yiraahdo evaluation oo inaad wax qiimeyn kartid oo company-gan shaqadiisa iyo siduu u shaqeynayo systemkiisa oo dhan waa inaad qiimeyn kartid sidoo kale waa in aad gorfayn kartid sidoo kalena waxaa lagaga baahan yahay shahaado jaamacad oo bachelor's degree ku saabsan waxa aad markaas sameynaysid ama shaqadan ku saabsan ayaa lagaaga baahan yahay sidoo kale by 2026 waxaa la yiri 2026 shaqadan waxaa banaanaan doonto 95,000 ugu yaraan 100,000 oo position ayaa banaanaan doonto ayaa la yiri mushaarkoodan hadda sida la sheegay sanadkii waa 80,000 oo dollarka Mareykanka shaqada shanaadna waxaa la yiraahdaa registered nurses ama kalkaaliyaasha kalkaaliye wuxuu qabtaa taqaanaa waa gacan yaraha dhakhtarka hadii si kale u dhahan oo dhakhtarka ka caawiyo bukaankan hadii noqon lahayd daawadiisa daryeelka bukaanka iyo la shaqeynta dhakhtarka labadaas ay shaqadaadu ay tahay marka skills lagaaga baahan yahay maxay tahay skills lagaaga baahan yahay ko orto inuu communication-kaaga fiican yahay sidoo kale waa inaad qof naxariis badan aad tahay sidoo kale waa inaad leedahay skills la yiraahdo critical thinking ama inaad si qoto dheer u fikiri kartid sidoo kale skills lagaaga baahan yahay ayadan waxa way observation in aad noqon kartid qof yacni oo la socdo si fiican jawiga ama si fiican wax u observe gareyn kara tusaale haddii qof lagaaga taga bukaan ah waa in qofka xaaladiisa aad il gaar aad ku fiirisid oo aad la socotid hadda laakiin iska mashquulshid oo wax kale ku mashquulshid qofkaas waxa laga yaabaa in xaalad khalis uu galaba waa inaad jaamacad uga soo baxdid kalkaalinimada oo inaad wadataa bachelor's degree waxaa la yiri shaqooyinkan naasinka ah ama kalkaaliyaha 2026 waxaa ka banaanaan doonto 430,000 oo boos ayaa banaanaan doonto dabcan adduunku wuxuu u baahan yahay kalkaaliyaal fara badan marka mushaarkooda hadda sida lagu qiyaasay sanadkii waa 70,000 laakiin mustaqbalka aad ay uga sii badanaysaa maadaama dalabkooda uu badan doono mustaqbalka shaqooyinka mustaqbalka ugu saameynta badan ama ugu dalbashada fiican intaas ayaan kusoo koobaya shanta saxba ayaan kusoo koobaya way badan yihiin dabcan muuqaalkan kuma wada koobi kari haddii halkan aad soo gaarto waa kuma san daawashada muuqaalka haddii aad weli janka subscribe saarnin fadlan subscribe saaro gambalelkana furo muuqaalka like saar sida badan u gaaro intaan ku kulmayno muuqaalka xigay waxaan kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo